بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لانتين باخيارتا هودا نغلا سعوتاي كسو دوادا داودايال warbixinay noogu hadlayno wararkii u dambeeyay dagaalada ka soconaya gobolka Afdheer ee deegaanka Soomaalida ilaa iyo 3 meelood ayaa lagu soo waramayaa in dagaalo foolka fool ah meelaha qaarkood ay ka socdaan waxaana ugu daran meesha hulul lagu magacaabo oo ka tirsan santarka Afcadda ee gobolka Afdheer waxayna ka tirsantahay sida la inoo sheegay degmada Hargeysa ee caasimada gobolka Afdheer dagaalo khadhaadh ayaa meelo dhowr ah ka soconaya waxaana lagu soo waramayaa in dagaaladu ay yihiin kuwo aad u daran taleefanada ayaan si toos ah u shaqaynaynin laakiin meelaha qaarkood marmar ayay noo dhacayaan dadka deegaanka waxay sheegeen inay arkeen meydadkii ugu badnaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida ayaa isaguna meelahaasi la sheegay in uu gaaray daawadayaal warbixintii u dambeysay idin la wadaagayna iyo dhagaynta wixii xog ah ee aynu ka helay duulaanka al-shabaab ay ku qaaday deegaanka Soomaalida taariikhdu waa 22 bisha 7 2022 waana galabnimo jumco ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan haddii aynu ugu horreynba ku bilowno dagaalo aad u khadhaadh ayaa ka soconaya gobolka Afdheer ee deegaanka Soomaalida markii hore waxaa laynoo sheegay in ay kooxda al-shabaab ee u talowday dhinaca gobolka Afdheer ay yihiin tiro yar oo lagu hareeraysan yahay isla markaasina dagaalo sidaas oo culus aan gali karin laakiin wararka maanta laynoo xaqiijiyay ayaa in tiro badan oo ka tirsan ururka al-shabaab oo ku dhawaad ilaa iyo 1500 oo askari oo al-shabaab ka tirsanaa dhinaca deegaanka Soomaalida u talaabeen isla markaasina dagaalo foolka fool ah ay jiraan ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida ee liyu booliska waxaana ciidamada dawladda deegaanku ay sheegeen in jab aad u xoogan ay gaarsiiyeen al-shabaab qaybihii u dambeeyayna hadda ay la dirirayaan laakiin sida dhabta ah dagaalo khadhaadh ayaa soconaya qorshahana waa qorshe al-shabaab ilaa iyo sanadii 2021 ay ka shaqeynaysay hub iyo raashin iyo waliba sharciyo loo sameeyay al-shabaabta dhinacaasi u talowday sida xog rasmi ah aynu ku helay iyada oo qorshahan ay xataa ku lug leedahay jabhadda oo ay ka dagaalantay gobolka Oromada hadda wararkii u dambeeyay waxay sheegayaan in 3 meelood dagaalo ay ka socdaan oo ka tirsan gobolka Afdheer kan ugu daran ayaa waxa uu ka socdaa meesha hulul lagu magacaabo oo ka tirsan santarka Afcadde waxaana halkaasi dadka shacabka ay sheegeen oo aynu la xiriirnay isla markaasina ka gaabsaday magacyadooda inay noo sheegeen inay arkeen tiro aad u badan oo meydadka al-shabaab ilaa 83 askari oo ka tirsan al-shabaab ayuu noo sheegay oday kamid ah dadka deegaanka oo telefonkiisa uu noo dhacay waxaana sidoo kale warbaahinta Soomaalida iyadana sida BBC-da ay sheegayaan in dagaalo aad u khadhaadh ay ka soconayaan deegaanka Soomaalida gobolka Afdheer ciidamada deegaanka Soomaalida oo lagu soo daabulayay deegaanada dirirtu ay ka socoto shalay maanta iyo daraadba ayaa ilaa iyo hadda ku hareeraysan goobaha dagaaladu ay ka socdaan iyadoo dirirtu ay socoto haddana dagaalka ugu culus ee saaka qarxay ee waxba aan la iskula hadhin ayaa midka ka soconaya gagaarka Sancade ee ka soconaya meesha hulusha lagu magacaabo waxaana ciidamada dawladdu ay sheegayaan in halkaasi ay guul ka gaareen ciidamada militariga Itoobiya ee dawladda federaalka ayaan wax gurmad ah soo sameeynin iyadoo ciidamada liyu booliska aysan haysanin hubka culculus ee loo baahan yahay markaasi oo kuwan al-shabaabta ee tallaabay iyo iyagu ay isku hub wataan oo system dawladeed marka la fiiriyo aysan awood dheeraad ah oo qalab aysan dheeraad lahayn haddana waa ciidamo si aad u dagaalamayo oo naftoodurayaal ah waxaana ay dagaalka ka gaadheen qaybihii hore guul inkastoo wali aan la soo afjarin kooxihii al-shabaab oo doonayeen iyagu isku qarxiyaan magaalooyinka iyo deegaanada kamida gobolka Afdheer iyo guud ahaanba gobolka Soomaalida waxa wararka iyo sirta ay wateen lagu sheegay in ay doonayeen in muddo 2 toddobaad ay ku ololiyaan magaalooyinka deegaanka Soomaalida oo isku wada dhex qarxiyaan magaalada Hargeysa ayuu qorshahoodu ahaa inay qabsadaan iyo magaalooyinka ku yaala gobolka Afdheer laakiin taasi ma aysan u suurtagelin oo waa ay ku guul daraysteen waxaana la sheegay in jidkii ay ku socdeen waxay rabeen markii hore inay qabsadaan meesha la yiraahdo Jarrati kadib waxa ka khaldamay jidkii waxayna galeen dhul buuraley oo hawd ah iyaga oo dhulkaasi markaas loogu yimid oo lagula dagaalamayo qorshayowga ay wateen kaba dambaysta waxa waa muddo 2 toddobaad ah in magaalooyinka oo dhan ay gubaan oo ay siyaabo kala duwan ay dab u qabatiyaan oo ay dad badan halkaas ku dhintaan isla markaasina iyaga ay guul u tahay in la dhaho
deegaanka Soomaalida iyo magaalooyin ka qabsadeen qorshahooduna inta talowday waa in meelahaas ay ku soo dhimato maadaama oo nolol aysan rabin oo ay yihiin dad ayagii oo taagan isqarxinayo is ololinaya laakiin ciidamada deegaanka Soomaalida iyo maamulka deegaanka Soomaalida inkastoo markii hore ay u suurta gashay in ay ilaa iyo 150 kilomitir ka badan ay gudaha u galaan deegaanka Soomaalida intaas oo dhan ay sii socdaan haddana markii xogtooda laga baaraandegay ilaa sida iyaga ay u qorshaysnaayeen dhinaca deegaanka Soomaalidu ma qorshaysnayn ugu dambeyn maanta iyo shalay ilaa iyo xalayto ayay ciidamada soo gaareen qorshahoodina waa u fashilmay in badan oo kamid ah waa la laayay ugu yaraan 7 gaari ayaa la sheegay in laga gubay 10 gaari oo kale oo ay la talaabeen ayaa wali aan gacanta lagu dhigin inta xogta aynu ku helayno sida aynu xogta ku helayno inkastoo laga yaabo ciidamada liyu booliska ee dagaalka ku jira ee wali meelaha warbaahinta aan soo gaarin in kuwaana gacanta ay ku dhigeen laakiin wali waxba ku maqan waa ayna joogaan waxaana laga yaabaa inay isku dayaan in ay jabhadeeyaan haddii systemkii weynaa ee ay doonayeen uu u suurtageli waayay kaasi oo ay muuqato inuu soo suurtagelin madaxweynaha deegaanka Soomaalida waxa la sheegay in goday uu ka soo duulay isaga oo u socda meelaha dirirtu ay ka socoto oo ku soo dhawaaday gobolka Afdheerna uu soo gaaray kullay wuxuu doonayaa in meelahaasi ciidamada laga dhiirigeliyo halkaasi laga diro dadka deegaanka ayaana garab istaagay ciidamada liyu booliska ayaga oo hor soconaya isla markaasina meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan ragga soo duulay markaasi farta uga fiiqaya raashin iyo agabka ciidamada ay u baahan yihiin iyo biyaha ayay ku caawinayaan dadka shacabka ah oo ayagu ka soo horjeeda colaadda iyo dagaalka iyo duulaanka Soomaaliya looga soo qaaday shacabka Soomaaliyeed al-shabaab ayaa doonaysa inay dab geliso meel kasta oo dad Soomaaliya ay ku nool yihiin wadanka Kenya marka ay weerarayeen waxay weerari jireen deegaanka Soomaalidu ay degtaa Kenya magaalada Nairobi markay yimaadaan xaafadda isliya Soomaalidu degan tahay umay qaraxyo ka sameeyeen Soomaaliya meel iyadana waan ognahay waxyaabaha ay ka sameeyaan haddana deegaanka Soomaalida ayay doonayaan in ay sidaasi oo kale ay ka dhigaan marka waa niman qofka Soomaaliya meeshuu ku nool yahay doonaya in ay daba dhigtaan haddii ay markaasi qorshaha ay u socdaani waxa ay dadka u sheegayaan ma uu aha waa wax aad moodo in Soomaalida oo si gaar ah ay ugu ugaarsanayaan deegaanka Soomaalida dad Soomaaliya muslimiin oo umba jooga Soomaaliyana waa dadkaas oo kale ayaguna inay gaalo la dagaalamayaan ayay sheeganayaan haddana wadan gaalood uma socdaan kuwa ayaa ka soo tagaya Mareykanka iyo Yurub iyo meelo ka sii fog oo gaaladii waaweyneed ee adduunkoodba ruux muslima aan arag ay joogaan isla markaasina jihaad u soo doonanaya meelan waa sida ayagu sheegayaan hal ruux oo gaal ah meel uu san joogin bay jihaad u soo doonanayaan marka khaladaad iyo waxyaabo badan oo dadka ay aaminsiiyeen ayaa jira waxaana jira dad ay loo been sheegay oo deegaanka Soomaalida iyo gobolka Afdheer si been oo tuugaysi ay doonayeen inay kula shaqeeyaan kuwaas shalay waxa la sheegay in qaybihii u dambeeyay la qabtay iyo waliba agab loo soo dhuumin hayay daawadayaal ilaa iyo hadda xaaladdu meel adag ayay maraysaa dagaalkii saaka bilowday ayaana ilaa iyo hadda soconaya ma jiro faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya laakiin waxa xaqiiqo ah in dagaallo aad u culus ay ka socdaan gobolka Afdheer oo waliba ilaa iyo 3 meelood ay ka socdaan al-shabaab ayaana isku dayaysa inay ka dagaalanto sidoo kale si dagaalkaasi looga mashquulo xadka Soomaalida iyo deegaanka Soomaalida iyo dalka Soomaaliya meelaha sir dagaallo kale ay ka fureen iyaga oo doonaya in ciidamada la kala mashquuliyo oo ciidamada Soomaaliya halkaasi ay ka dagaalamaan kuwa kale liyu booliskana halkaasi loo kala diro laakiin warka laga soo xigtay ee saraakiil ka tirsan ciidamada liyu booliska waxay sheegeen in ay hadda saacadaha soo socda suurtagalta inay soo gabagabeeyaan gebi ahaanba howlgalkii meesha looga saarayay duulaanka al-shabaab ay ku soo qaaday inkastoo dhulkan hadda laga dagaalamaya isku qotoma ilaa iyo email iyo laga hidda gendhir iyo dhulkan Afdheer dhulkaas oo dhan waa dhul buuraley ah haddii ay jabhadeeyaan oo ay duurka galaan kullay in la raadiyo waqti bay qaadanaysaa inkastoo hadda ay hareeraysan yihiin sida la sheegayo oo cid ka bixi kartaa inaysan jirin laga yaabo haddana systemkan weyn ee ay ku wada socdaan saadkooda iyo waxooda dhan ay ku wataan iyo gawaarida iyo waxan uma suurtagalahayo haddii sidaas ay isku dayaan waa la dhammayn doonaa laakiin systemka kale jabhadeynta waa laga yaabaa xoogaa in ay ku guriilayaan dhulka deegaanka Soomaalidana aad ugama suurtagalayso in ay guriila ku noqdaan oo waqti dheer ay joogaan waa dad doonaya inay wada dhintaan oo isqarxinayo ruux walba meeshuu soo gaaro hadii gawaaridii ay wateen waxa la sheegay qaar in ayagu gubeen rasaastoodii ay gubeen raashinkii ay wateen ay gubeen marka waa dad inta badan marka ay u arkaan in guuldarro ay wajahayaan waxooda oo dhan wada gubaya haddana dagaaladu waa ay socdaan oo deegaano badan ayay ka socdaan dadka aad bay u cabsanayaan in codkooda la qabto nooma ogolo oo waxay noo sheegayaan inaysan labada dhinacba dhib uu kaga iman karo laakiin xogahayna siinayaan in dagaallo qadhaadh ay socdaan oo xabadda iyo miifta la maqlayo xataa dad shacaba wax soo gaadhay ayaa la inoo sheegay daawadayaal bal aynu dhageysanno warbixin uu boorgaabo BBC-da u soo diray oo iyadana uga hadlayo dagaaladan iyo halka la kala marayo
la kala marayo. dhinaca ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu soo waramayaa in maalintii labaad ay dagaal xoogan kula jiraan xooga ka tirsan shabaab oo gudaha u galay qaybo ka mid ah dhulkaasi. Ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya khasaaraha kala gaaray labada dhinac. Wararkii ugu dambeeyay xaaladda goobaha lagu dagaalamay waxaa goor dhaweed iga waramay wariye Ismaaciil Buurgaabo oo ku sugan Jigjiga. dagaalkii saaka ayuu dib labaad u qarxay waxaa hadda dagaal ka socdaa iyadoo saddex dhinac ciidanka ay ka howlgelayaan laag loo yaqaano buri oo agagaarka hulul oo ka tirsan santarka afcade ee degmada Hargeysa dadka qaarkii iyadoo adag tahay in telefoon lagu helo mararka qaarkood oo noo suura gashayna dad agagaarka ka dhow tiro meedo al-shabaab oo badan bay sheegayaan oo ilaa 63 ayaa la gaarsiinayaa hay'adaha amnigana tiro inta ka badan ay sheegayaan inkastoo aysan iga ogolaan inaan si toos oo la hadlo ama magacyadooda soo xigto daqiiqado ka hor waxa aan la hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida oo horkacaya madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo hoggaanka nabadgelyada Mubashir Dubad Raage oo iminka ku sii jeeda aaga xabada ay ka socoto wax badan meelan u jirin gobolka afcada ay mar dhow dhaafeen ee gobolka Afdheer degmada Hargeysa koloyada la socotay mas'uuliyiinta igala hadlayay qaarkood inkastoo anigu maqlay waxay sheegayeen in wariyaha waaweyn ay daaqada markii gaariga dadjiyaan ay maqlayaan marka hay'adaha amniga waxa ay sheegayaan in howlgalka uu gabagabo ku dhow yahay intaas ayaa ugu dambeysay inkastoo qof mas'uul ah oo ilaa hadda naga ogolaaday waraysi uusan jirin dadka deegaanadaas ku nool ma jiraan qaar ka mid ah oo ama ay ku suurto gashay inaad telefoonka ama siyaabo kale aad warbixino uga hesho maxayse kuu sheegeen dadyow aaga ku dhow oo isla goobta dagaalka joogid maadaama ay dhul iska miyi tahay oo laaga iyo waxa weeye qowya dhex agtooda ay tahay waxay sheegayaan inay maqlayaan hubka dhacaya iyo dagaalka dad ay la soo hadleenna dhimasho badan inay sheegayaan iyo inay arkeen maraadad iyo inkastoo inta badan aysan ii sheegin wax dhaawac ilaa hadda ay meelaha ku arkeen dadka miyigana goobahaasi way ka fogaanayaan oo ciidanka liyu booliska ku amrayo inay dib uga baxaan aaga oo dagaal ka socdo waana dhul iska miyi ah dhanka ciidamada liyu booliska iyaga maxaa ka soo baxaya maadaama ay ku lug lahaadeen dagaalkaas laftigiisa saraakiil inaan magac dhabo aniga ogolaanin baan qaarkood la hadlay guula ayay sheeganayaan tan iyo shalay markii ay saddexda jaha markaa ka hor fariisteen maleeshiyaadkii soo galay deegaanka al-shabaab guulo badan ayay sheegayaan waxay kaloo sheegayaan inaysan u suuragelaynin inay dhinacna uga baxaan xeyndaabka iminka ay ku sugan yihiin iyagoo marka horena qorshahooda loo malaynayay dadka qaarkood u malaynayay inay u socdaan dhanka tuulada unka iyo ceelkari taa inaysan suuragal ahayn oo ciidan xoogan uu halkaa ka fadhiyo sinana aysan uga bixinin xeyndaabkan hadda ay galeen erayo noocaas ay ii sheegayaan ma waxaa jira dad deegaanadaas dagaaladu ka dhaceen ka soo qahay oo meelo kale badbaado u aaday deegaanku waa iska miyi tuulooyin yaryar ayaa ku yaallo wax badan ma jiro goobihii ay soo marayeen habeenkii ay khamiista ahayd soo gelaysay ayaa dadku ay usii banaynayeen dadkuna teleefanay haystaan oo ayna soo dhaafeen xaggaasi kusoo socdaan markii la yidhaahdo ayay magaalada ka baxayeen waxa weeye ka yara durkayeen marka wax badan ma jiro dadka goobahooda inay kusoo noqdeen qaarkood oon la hadlay ii sheegeen marka hadda xaaladda maxaa laga saadaalinaya oo dadku ay leeyihiin waxaa la rajaynayaa in xukuumadda ay ka hadasho marka howlgalkan hadda dagaalku socdo uu soo gabagaboobo sidaa ayaa la rajaynayaa waana dhacdo qariib ah oo aan horey u dhicin in al-shabaab ay soo haweysteen gudaha deegaanka ay soo gasho weerarka naadirka ah ee lagu qaaday xuduudka ayaa dhacay Arbacadii markii dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay duulaan ku qaadeen tuulooyinka Yeed iyo Caato oo ka tirsan gobolka Bakool ee Soomaaliya kadib markii maalmo ka hor lagu dilay mid ka mid ah taliyayaashooda xadka dhinaca Itoobiya sidaasi waxaa Reuters u sheegay taliyo ka tirsan ciidamada Itoobiya oo ku sugnaa goobta uu weerarku ka dhacay weerarada al-shabaab ay ka geystaan deegaanada ku dhow xadka Itoobiya ayaa ah kuwa naadir ah sababtoo ah ciidamada Itoobiya ayaa si xoogan ugu sugan gobolkaasi iyo gudaha Soomaaliya sidoo kalena waxa ay qayb ka yihiin ciidamada nabad ilaalinta Afrikaanka ah ee ATMIS taliye ka tirsan al-shabaab ayaa u tallaabay dhanka Itoobiya si uu cutub uga abuuro gudaha Itoobiya ayuu yiri taliyaha Itoobiya oo codsaday inaan magaciisa la xigan maadaama aan loo fasaxin inuu warbaahinta la hadlo taliyaha ciidamada Itoobiya ayaa markii hore tirada dhimashada ku sheegay 17 askari oo ka tirsan ciidamada booliska Itoobiya balse markii dambe wuxuu cadeeyay in tiro rayid ah ay ku jiraan dadkaasi dhintay waxa uu tilmaamay in ciidamada booliska dawlad deegaanka Itoobiya ay al-shabaab ka qabsadeen qoryo culus iyo gaadiid dagaal waxa uu sheegay inuu arkay meydadka 10 ka tirsan al-shabaab
afhayeenka dhanka howlgallada ee xarakada al-shabaab cabdilcasiis abu muscab ayaa wakaalada wararka Reuters u sheegay in dagaalyahanadoodu ay qabsadeen labada tuulo ee Yeed iyo Caato ayna halkaasi ku dileen tobaneeyo ka tirsan ciidamada booliska Itoobiya. waxa uu sidoo kale sheegay inay gacanta ku dhigeen hub ay wateen ciidamadaasi. abu muscab ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo tirada dhimashada al-shabaab. tirakoobka dhinaca khasaaraha ah ee ay aalaba bixiyaan al-shabaab iyo maamulada ka jira Soomaaliya amaba meelo kale ayaa inta badan si weyn u kala duwan. Reuters iyo guud ahaan warbaahinta umaanay suurtagelin inay si madax bannaan u xaqiijiyaan tirooyinkaasi. xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay inuu weerarkan kala hadlay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaan ilaa iyo hadda wax hadala ka bixin weerarkan. xafiiska Barre ayaa sheegay inuu amar ku bixiyay in hay'adaha ammaanka iyo kuwa gargaarkuba ay wax ka qabtaan xaaladda ka jirta gobolka Bakool.